arrinta wasiirka wasiir horta annagu waxaan nuri marka laga reebo 17 waxaan u malaynayaa halkan wixii la isaga sheegaa waa wax ummadii oo dhan loo sheegayo waxaan hoos isugu sheegayno maaha guddigu waxaa marka annagu aanu doonnay meel aanu ka dheehanno sidii wax u dhaceen xisaab xiradii sanadadii u dameeyey hal mid kaba aanu helay waayo haddii la oran lahaa 21 waxbaa jiray waxayd inaan 20 helo sharciguna wuxuu yahay barla golahan in xisaab xirku soo gaaro 15 bisha 6 hadduu soo gaari waayo waxaa loo aqoonsanayaa in ciddii xaq ay u ahayd inay soo gudbiso ay la dib dhacday halkaana qodob sharciya lagu tuntay mudanayaal annagu waxaanu niri haddaad firisaan xisaab xir uu baarlamaanku sameeyey buuq qof loo keenay ama meel la dhigay annagu kama hadlin laakiin xisaab xir 4 sano u dambeysay 18 19 20 iyo 21 oo ugu dambeyn ay ahayd kan 21aad in bishaan la keeno ayna hadda dhammaatay intaas waxaa mudanayaashii naga horreeyey noo caddeeyeen annaguna aanu ku qanacnay wax xisaab xira oo maray baarlamaanka inuusan jirin sidaa darteed runtii anigu wasiirku meeluu ku farabaxsanayo ma aqaan waxay ila tahay waxbuu og yahay si cad waxaan u oran karaa dembi baa dhacay waddanka laga galay waayo haddaan la xisaabtamin waxaa imaanaya inta rifal dhacay annagu ku caddayn mayno in wasaaraddu dembigaa wada leedahay xisaab xirka qofba qaybba hay-adaha dowladda meel bay ka leedahay odhadku soo maraa golaha xukuumaddu soo maraa baarlamaanku soo maraa cidda kiiska yeela doonta iyadaa taqaan hadda waxaa loo saaray guddi soo hubiya ilaa waa keenay oo baarlamaanku yaallaa iyo lama ansixin bay joogtaa soo maha cid bay taabanaysa mas-uuliyadda dowladdu qaynuun ahaan waa mase wadareed qof walba xubin buu ka leeyahay waxaan mar haddii wasiirku ku dhegan yahay in xisaab xiradii 4 sano soo dambeysay dalka aanu ka aamusno inay sax u mareen uu ku qanacsan yahay mudane guddoomiye iyo mudanayaal waxaan codsanayaa arrintaas mas-uuliyad aan iska saarnay midda ugu adag in la iska saaro waxaa jira hay-ado gacanta baarlamaanka ah oo baaritaanka baarlamaanka dhaqaalaha odhadka iyo xiraarinta uga mas-uula arrintaa hadday golaha kiiskaasi ku jirana dee golo waa inu xisaabtama hadday jiraan mudayaalkii hore oo guddoomiyaasha meesha ka ahaa iyo hadday tahay cidda maamulka ah ee wasaaraddu xilliga ku habboonaa iyo hadday keentay dee waa in su-aashaasu timaada haddii wasaaraddu haysana waa in dee wasaaraddu lala xisaabtamaa iyo haddii iyo ciddii kaloo mas-uuliyaddaas haysato mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan ku celcelinaynaa oo si adag u leenahay 4 sano dalka in xisaab laga samayn waa dembi cidda mas-uuliyadda qaadaysana waa lagasla daba joogaa mas-uuliyaddaasna waa mas-uuliyad wadareed qofka meel buu ka leeyahay ha loo diyaar garoobo baarlamaano arrintaa inuu dabagalo haddayna taa samayn mid dambana ma samayn doono haddii maanta layna ku qanciyo xisaab xir baa waddankaa ka dhacay innagoo 323 badankeena fadhino oo laba gobol fadhiyaan oo been oo aan baarlamaanka la marin waxaan dalka ula joognaa maxaa barina ku sameynaya taas waay waxaan leeyahay khalad baa jira meeshu ka jirna ha laga baari doono cidda lena waa in waajibaadka shuruucdu siinayso oo ay mudan yihiin la mariyaa ugama jeedo wasiirka iyo wasaaraddiisa waa cid kasta oo saameyn ku yeelato arrintaa waa in dabagal dhaba lagu sameeyaa guddoonka uga madax celinayaa guddi wax u sarreeya soo xaqiijiya meesha hawshaasu marayso laakiin la isaga harimayo hay-ado dowladda u dhisan baa jira inay nidaamka dadka ku ilaaliyaan hay-adaha waxaa loo abuuray oo loo asaasay oo mushaar ku qaataan oo ummadda canshuurtooda ku qaataan dembiyada dowladdu inay ka ilaaliyaan iyo xeerarka filwaa inay dabagalaan
iyaga hadday shaqadooda ka gaabiyaan waxaan qabaa baarlamaanku uu tallaabo ka qaado aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa ka xumahay inaan laga cudurdaaran khaladka soo dhacay oo ah inaan waddanka xisaabir la keenin ee laysku tuurtuuro aad iyo aad baa uga xunnahay iyadoo ummaddii soomaaliyeed iyo madayaashiiba fadhiyaan khalad dhacay bay ahayd meesha laga cudaaran lahaa isku tuurtuur iyo indha adaga ay gasho aad iyo aad baa umahadsantihiin mudana guddoomiye mudanayaal arrintaas sidaanu idinku jeedno baa shacabkii soomaaliya idinku jeedaa waana idinku fadhinaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu